intaas kadib waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo shaqada qiimaha badan leh ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u haysiin iyo howlgalladii xoogga lahaa ee qaybtan ay sameysay oo lagula dagaalamay argagixisada oo uu ugu dambeeyay kii hadda gobolka Hiiraan ka dhacay oo qayb badanka idin kamid weli ay jiraan gaar ahaan guutada 27aad iyo guud ahaan waajibka difaac ee qaybta ku jirto Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha idinka abaal mariyo dadaalkiina markasta dabcan waa idinkaga mahad celinaynaa saraakiishiinana waa ku amaanan yihiin dabcan shaqada muhiimka leh ee ay qaybta hayso saawada ognahay dabcan qaybta 22aad deegaan aad u baaxad weyn leh aag mas'uuliyadeedkeeda uu yahay waligeedna waxa lagu yaqaanay guul difaacii ugu dambeeyay iyo ka hortagii dhagartii cadawga ee ceel dheer wali amaanteeda meel ay idinku qoran tahay sidoo kale hawlihii kale muhiimka ahaa ee qaybta fulisay qaybtan waa qayb laf dhabar u ah waligeedna sida lagu yaqaanay dabcan waxay ahayd qayb muhiimad gaar ah oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laga soo bilaabo dawladii dhexe waa ogtiin qaybtan waligeed qaybta 22aad qaybaha la sheegay kamid ahayd haddana waxaan ku faraxsanahay in shaqadii ama roolkii qaybtaas ay hawlihii waaga socday ay kala heed mid la mid in qaybta hadda ay hayso haduu Ilaahay insha Allah maalmaha waa idin la joogi doonaa sidoo kale saa ogtiin dabcan ciidan xoog laha idin ku soo biiri doono oo xoogiisa qaybtan ku soo biiri doono tababar ku jiro nimankaas dhiiga cusub ee walaalihiina dabcan ciidanka waxay u soo qorteen ee ugu soo biireen dadaalkii iyo shaqadii aawadeen inay meesheeda ka sii wadaan inay idinku garab siiyaan meesha keenteen inay kala qaadaan oo meelo ka sii sareeya ay geeyaan nimankaas inaa soo dhaweyn doontiin hadday soo baxaan fadhi ma yaala dabcan soo saasmaan fadhi ma jiro nimanka argagixisada dabcan waa ogtihiin laflacaari waayadii ugu dambeysay guulo badanna waa la gaaray haddana waxaan rabnaa hadduu Ilaahay insha Allah sida ugu dhaqsida badan sidooda waa in la dhameystiro ma ahan inay sii dhibaateeyaan ummad Soomaaliyeed ma ahan inay sii magac xumeeyaan ummadda Soomaaliyeed magac xun ay u soo jiideen adduunyada meel kasto aad tagtid dadkii muslimiinta ahaa ee islaamka ahaa ee Soomaalida ahaa ee lagu yaqaanay dabcan wanaaga iyo sharafta iyo inay rool weyn ka qaateen dabcan fidinta diinta islaamka maanta adduunyada meelaha qaar in lagu yaqaano dad isqarxinay wax wanaagsan ma waa magac xumay noo soo jiideen taas waxa ka sii daran dhibaatada ay ummadda Soomaaliyeed ku hayaan oo qarax leh oo dhibaato leh oo ummadda ay baabiinayaan si la mid ah dabcan dhibaatada ay ku hayaan ay ummadda Soomaaliyeed ay baadaan oo xoolahooda ay xoog ku qaataan meel kasto ay joogaanna ay tahay meesha meel aanan horumarna lahayn waxbarasho lahaynin haba yaraatee wax nolol ah aynan ka jirin marka xaq ma ahan dabcan inay ummad Soomaaliyeed iyadoo lagu jiro qarniga 22aad ay maanta xaaladaas ay ku jiraan waajibkaasna anagu hor yaala insha Allah dhiiga cusub markuu soo baxana waxaan rajaynaynaa insha Allah in sanadkan uu noqdo sanadkii dabarjarkii qawaariijta Soomaaliya looga dabarjaray hadduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan kaashanayna waana guuleysanaynaa intaas kadib waxaan rabaa sidoo kale inaan kaga mahad celiyo deegaankan iyo xasiloonidiisa sida uga qayb qaadateen hadduu Ilaahay insha Allah ciidankiinaan leedinku diirsan doono waan idinkaga mahad celinaa sharafta iyo magaca wanaagsan ee qaybtan ay u soo jiiday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoo deegaanadan markastoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la arko lagu farxo aragtidooda haddaynan idinka soo jiidi lahayn oo dad ummadda dhibo oo dhibaato laga tirsanay hadda ahaan lahayn dabcan ma dhici lahayn sidaas magacaasna ma yeelan lahaynna
sharafta iyo karaamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan u soo jiideen ciidamada qaranka waa idinkaga mahadcelinaynaa waan idin ognahay hadduu Ilaahay insha Allah maalmahan aan joogana taliyaashiinan kala xog qaadi doonaa hadduu Ilaahay idmo oo howlahan hor yaalo aan iska sii wareysan doonaa sharaf ay tahay maanta inaan soo hor istaago maanta ka hore dabcan inay imaado maadaama qaybtan ay tahay qaybaha hadda tusaalaha loogu soo qaato ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laakiin howlihii kale aan ku jirnay awgeedan idinku imaan waaye laakiin waxa hadda ka dambe insha Allah waan ku soo noqon doonaa aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.